taageerin midna ha taageerin cidna cod ha siinin xilliga fitnada afkaaga xiro waxa kaloo muhiim ah in ogaano dalku meeshu marahay iyo xaaladda wadcigu ku sugan yahay waddan waa xaalad cakiran oo aad u adag weyn ummaddan cudurkaani ku dhex baahay colaadina waxa weeyaan saasaankeedu uu muuqdo waa laba khatar oo waaweyn caafimaad darro iyo amni darro hadday bulshada iskugu daranto waa dabargo waa in ilaahay la baryaa oo ilaahay aan barinnaa ilaahay aan tuugnaa dalkeenna ilaahay amni inuu nooga dhigo caqli kale celinahayaa ma yaallo hadday gaalo amar ka qaadan jireen xaalna u fadhidana ayadii baa isku fiirsanayso waa baaba'aaga aan danka lahayn dad aan dareemahayn oo eegahayn hooyada dhimanaysa hooyada umushaahoo dhiigbaxaysa miskiinka xamaaranayoo tugsan jiray oo saaka magaaladu ay ka xidhantay masaakiintii masaajidkan soo dhooban jirta maanta ma joogto hal iyo laba ka jooga meelay soo maraan male maxaa u dana ninkaa guriga ku go'doonsanoo miskiinka ah kii quutulyoomka maalinkaa raadin jiray oo dawlad iyo maamul wuxuu yahay waxba aan ka ogayn ee habeenkii xoogaagiisa yarkaa ilmaha ola hoyana hayay haddii jidadkii ka go'aan haddii qax uu ku yimaado yaa u dana kuwaa dhiigbaxahayo haddii la xabadeeyo madaafiici lagu rido dhiiggoodu qubanahayo isbitaallo qaabili kara iyo wax dawo la garab taagan iyo wax u maciinaya aan la arag caqligii shaqayn lahaa oo bulshadaas dardarrada ku kortay ku barbaartay oo dhibaatada intaa la daalaadhacaysay caqligii shaqayn lahaa oo tanaasuli lahaa nimankaa ishirtinahaya kuma harin kamana muuqdo annaga mas-uuliyad baa ina saaran inaan nafteennu ay badbaaddo ilaahayna aan ka baqno sababna aanan u noqon qof muslim ah dhiiggiisa oo dhulka ku dhibca midka xabadda ridayaa waxa uu dila amaama allaah amar baa la isiiye uga badbaadi maayo midka sabab u noqonahaya bulshada inay baaba'do oo halaagsanto asaguna ku badbaadi uu mahayo dadkaa bulshada ah in badan baan soo aragnay oo soo aragnay oo soo aragnay in dadka madaxda ah oo siyaasadda ku hirdamahayaa ilmahooda ay seefgarayaan marka hore iyo xaasaskooda dibadaha ay geystaan ayaguna guryo shub ah oo qasriyaala ay hoos galaan markay dariiqa marayaana gawaari qafilan oo xabaddu aynan kelin ay ku maraan markay isku basbeesho isku baaba'dana intay duulaan ay shir u fadhiistaan xalane ama nairobi ama kenya ama meel kaloo dana dadle ay ka leeyihiin oga yeedhaan halkaas intuu fadhiisto uu ka soo hadlo guryuhu markay baaba'aan oo dadku ay qaxaan wixii soo harayna uu rabo inuu dhiiggooda xukunka ku helo waa waxaynu soo aragnay oo goobjoog u ahayn weeye ninka maanta lacag ku bixinayo maanta ganacsadaha ah gu' ma jiro hal gu' ma jiro qabiil buu ku bixiyey oo ku bixiyey oo ku bixiyey meeshay ku dambeeyeen buu arkay ninka maanta ku taageeraya xaflado iyo shirar inuu u qabto oo lacag ku bixiya gu' ma jiro laakiin hadda waa lagala wareegay Soomaali dhaqaale in anagu bixinee hay-adaa ku bixinayo mid kastoo mucaarada waxbaa la siin midka mu'ayidka waxbaa la siin mid walba waa la taabagelin waa la isku wadin caqligoodu isku keeni maayo inay geed hoostiis fadhiistaan oo heshiiyaan inay isku tanaasulaan inay ku soo celiyaan odayaal cuqaala ay yiraahdaan go'aan ka soo gaara inay culummo u celiyaan kuma keenahayo mid walibana wuxuu leeyahay markuu daliishanahayo dastuurka ayaa meel looga dhacay dastuurka ayaa meel looga dhacay dastuurku agtooda wuxuu ka yahay muqaddas tafaasiir badan buuna leeyahay oo nin walba dastuurka qiil baa ugu qoran uu sheegto laakiin kitaabka ilaahay baa meel looga dhacay maqli maysid kitaabka ilaahay baa wax ku xukumaya maqli maysid waxaad maqlaysaa dastuurka meel looga dhacay weeye inuu ku meel maro ayuu rabaa ha taageerin midnaba ha taageerin cidna cod ha siinin xilliga fitnada afkaaga xiro sida koroonaha afkaaga uga duubatay siyaasadda taagan
oo qori qori ku taagga ah adiga inaad nabadgeshid baa rabtaa qabriga marka lagu dhigo caydiid iyo faarax iyo jumcaale waxba kuu tari mahayaan god baad gelaysaa afkaaga xiro oo ka xiro cid kasta ayadaa danteeda wadata xukun baana lagu diriirsan yahay masaalix ummadeed laguma maqna ilmana uma joogaan qasriyana way ku jiraan kuwa jiingadaha ku jira kuwa dariiqay daadsan kuwa baahan ayagu ka mid ma aha biilku berri cuni lahaa iyo bisha soo socota ka fakari mahayo meel buu u yaallaa waxa uu rabana dhiiggaaga inuu xukun ku helo weeye xabaddana aduu iskaga kaa dhigayaa hebel hadduu yahay qof now waxa weeyaan ha ku naar tegin aakhiradaada ilaasho waxaa naga quseeyo ku celcelinaynaa inaan nidhahno xasbuna allahu wa nicma alwakiil حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله